dagaal aad u culus oo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka Soomaaliya haatan ku dhex maraya xadka kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Cabdilcasiis iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxayo sargaal ku dhaawacmay dagaalkaasi wararkii ugu dambeeyay sababaha kalifay in uu ka dhex qarxo dagaalkani ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa daawade laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanida aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ayaa waxa laga helayaa dagaal aad u xoogan oo haatan ka socdo xadka kala qaybiya degmooyinka Cabdilcasiis iyo sidoo kale Kaaraan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho dagaalkani ayaa waxa uu u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalkani uu haatan aad u culus yahay isla markaana la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhinacyada dagaalamaya kala hogaaminaya taliyaha saldhigga degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir oo dhaawac aad u xoogan oo dagaalka ka soo gaaray isagoo ku qeyl dhaaminaya halay badbaadiye halay qaadana goobta laga badbaadiyay dhaawiciisana la dhigay mid ka mid ah isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho ku yaala sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in dhanka iyo ciidamada kale uu hogaaminayo sargaal lagu magacaabo Axmed Cali Ugaas oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka isla markaana kaalin weyn ka qaata kaaba qodashada magaalada caasimadda ee Muqdisho sargaalkani ayaana waxa ay wararku ay sheegayaan inuu ka shaqeeyo kaaba qodashada magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana dadka kaawada qoto uu sargaal u yahay sida xogaha ay tilmaamayaan isla markaana isagu uu ka qaado canshuur fara badan taa oo keentay in dagaal aad u xoogan uu kala hor yimaado taliyihii saldhigga degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir waxaana haatan xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay xadka kala qaybiya degmooyinka Kaaraan iyo Cabdilcasiis iyadoo dhawaqa risaasta laga maqlayo gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana labada dhinacba ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan waxa la arkayaa ciidamada oo koray dabaqyo dhaadheer si ay isku laayaan ilaa iyo haddana ma jirto cid ku baxday oo waawaan kala dhex dhigtay labada ciidan ee halkaasi ku dagaalamaya walow labada dhinac ay helayaan gurmadyo kala duwan waxaana jira ciidamo fara badan oo ku sugan Miranaayo isla markaana isku diyaarinaya sidii ay halkaasi u tagi lahaayeen ciidamadani oo ah gurmad isla markaana la filayo in ay ku biiraan dagaalka ka socdo xadka kala qaybiya degmooyinka Cabdilcasiis iyo sidoo kale Kaaraan ee magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana haatan halkaasi ka dhacaysa risaas aad u xoogan iyadoo qasaaraha dagaalka uu haatan dhaliyay lagu tilmaamayo in uu yahay 5 dhaawac iyo sidoo kale 2 dhimasho sida xogaha hordhaca aynu helayna ay daawadayaal ay sheegayaan wararkii ku soo kordho dagaalkani u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan sargaalkani lagu magacaabo Axmed Cali Ugaas oo ka mid ah dadka ka shaqeysta kaawada iyo sidoo kale sargaalka hogaamiya saldhigga degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir ayaan idinku soo gudbin doonaa muuqaalada kuwani xiga daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada boggaana follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran sidoo kale qaybta iyo commentiga inagula wadaag aragtidaada mahadsanida